wafdigan ka socday xukuumadda Somaliland ee socdaalka shaqo ee ku saabsan dhamaystirka heshiiska maalgelinta dekadda Berbera ee dhexmariyay madaxda shirkadda DP World iyo xukuumadda Somaliland ee socdaalka ugu joogay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa soo gabagabeeyay heshiiskii maalgashineed ee lagu meelmarinayay dhamaystirka heshiiska ganacsi ee dhexmaray Jamhuuriyadda Somaliland iyo shirkadda ganacsiga ee DP World ee laga leeyahay dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. Maareeyaha dekadda Berbera Ahmed Yusuf Dirir ayaa sharaxaad ka bixiyay kulamada dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ku dhexmaray xukuumadda Somaliland madax ka socota iyo saraakiisha shirkadda DP World ee maalgelinaysa dekadda Berbera. waxaynu soo gabagabeynay heshiiskii aynu la gelaynay DP World waxyaabihii yaryaraay ka dhinaa iyadoo bishii September ee sanadkii hore heshiiska weyn la saxeexay alxamdulillah bisha March kowdeedana waxa bilaabmay inaynu si dhammaystiran dekadda ugu wareejino shirkadda DP World oo maamuli doono company-ga ee Somaliland iyo DP World wada lahaayeen markaa wixii muddadaas ka dambeeyana waxa bilaabmaya in la sameeyo assessment-kii iyo qiimayntii dekadda dhismaheeda shaqaalaha weynihii dekadda Berberana waxaan u hambaleynayaa in dhammaantoodba ay la wareegtay shirkadda DP World marka laga reebo 45 u soo haray Somaliland Port Authority ama wakaaladda dekadaha Somaliland oo ay ku sii hari doona dawladda waxaana si dhammaystiran u qaateen xuquuqdoodii muddada dheer ay soo shaqeynayeen qarankan oo iyadana si dhammaystiran wixii ay xaq u yeesheen la siiyay waxaan maqlaayay in la leeyahay shaqaale laga tagay laakiin waxaan halkan ku cadeynayaa sidii heshiisku dhigayay ee ahayd in wixii shaqaale dekadda u shaqeyn jiray ee shaqada jooga la qaato si dhammaystiran baana loo qaatay waliba waxa siyaadaha oo la qaatay 12 qof oo aan shaqaale hor ahaan jirin laakiin la shaqeyn jiray waaxda security-ga oo in badan la soo shaqeynay si temporary ah. safiirka Somaliland u fadhiya dalka Ethiopia Ambassador Ali Salaan Jirde Ali Shombe ayaa dul istaagay ahmiyadda shacbiga Somaliland ay ka dhaxli doonaan maalgelinta dekadda Berbera. waxa weyn hawsha ugu badan ee aanu anagu haynay waxay ahayd inaan heshiiskaasi wax inoo qaloocan ka imanin oo aynu hadhow taqoomayno waana xaqiijinay iyadoo ay looyaradu dhalin joogaan oo imka ay halka fadhiyaan horteeda oo ay gabagabadii hawsha dhamaystireen marka waxaan oran lahaa weelkii aynu tolanay maanta diyaar u yahay inaynu ku shubano wax nin walba halkii aad ka geli lahayd diyaarso. Ambassador Baashi Awil Umar safiirka Somaliland u qaabilsan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ayaa si qoto dheer u tibaaxay qiimaha laga dhaxli doono marka Jamhuuriyadda Somaliland laga abuuro fursado maalgashi isagoo safiirku sharaxaad ka bixiyay shirka labageesoodka ee xukuumadda Somaliland iyo madaxda shirkadda DP World ku dhexmaray dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. waxa dalka Imaaraadka ku sugan wafdi reer Somaliland oo halkan joogay waftigaasi waxa ay hawla wadeen shirkadda DP World waxa farxad weyn ah in maanta waftigaasi soo gabagabeeyeen wada hadalkii la socday iyaga iyo shirkadda DP World wada hadalkaas oo ujeedadiisu ahayd in lagu soo dhamaystiro wixii xalxalaha ee ka dhinaa heshiiskii bishii September xukuumadda Somaliland iyo shirkadda DP World wada saxeexdeen. wafdigan ka socday xukuumadda Somaliland ayaa kulan la yeeshay jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta iyadoo mas'uuliyiinta jaaliyaddan ay uga xog warameen muhiimadda ay leedahay mashruuca maalgelinta dekadda Berbera iyo faa'iidada ku duugan ee shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland mashruuca ay ka dhaxli doonaan. xukuumadda Somaliland ee u garwadeenka ka yimid madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa intii ay haysay hoggaanka qaranka Somaliland waxa ay hindistay qorshayaal horumarineed oo lagu suurto gelinayo iskaashi ganacsiyeed oo dhexmara Jamhuuriyadda Somaliland iyo beesha caalamka kaas oo looga gol leeyahay kobcinta dhaqaalaha bulshada reer Somaliland iyo sidii Somaliland bulshadeedu ay u gaari lahayd isku filnaansho dhinaca nolosha ah. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland caasimadda Hargeysa.